السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن إدلهانتيدا موقال كينن وحا أينو كغهد دونا أستامها عاطينيا إنو نبي محمد رسولك إلهي يكالة الله عيديها إلهي سبحانه وتعالى وحا أوكوك اللغي رسول كيسا يفضلك أوديرك أغيالي وقار لما ترين كرايو marka loo eego rusushii iyo ambiyadii ka horeysay iyo khalqigiisa kale oo dhan waxaanu raaciyay oo uu u yeelay aayado cadcad oo lagu rumaysto waxan uu keenay ee hanuun iyo xaqnimada diinta waxaana ka mid ahaa calaamadaha muujinaya nebinimadiisa dayaxa oo kala dhambalmay xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam goobjoogna u ahaayeen kufaartii iyo muslimiintu dhacdadaasi kadib markay Quraysh beenisay ee ay rumaysan waayeen kana codsadeen calaamad tusaysa runnimada baaqiisa markaasuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay rasuulkiisii sallallahu alayhi wasallam aayado weyn eenu bashar hawaysan karin ka fikirkeeda isla markaana u cadaynaysa runnimada ugu baaqida kelinimada Alle koreeye iyo inuu kaliyahay rabbinimada ilaahiyadaasi ay caabudayeen yihiin baatil aan wax tarin waxna yeelin oo Alle la caabudo uun Alle kelidii oonu sharik lahayn kala dilaaci dayaxana lama sheegin wax u dhowaa aayadihii rusushii kale taasoo uu ku dhacay samooyinka sare oo ka baxsan gebi ahaanba cimilada ay ka kooban tahay alladan aynu degannahay mana jirin xeeladooda cid uu damac ka hayay xilliga dayaxa gaadhidiisu sidaasi darteed ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ugu noqday burhaan guul iyo wax lagu rumaysto dhacdadaasina waxay asxaabtu ka soo wariyeen xadiisyo kala gedisan waxaana ka mid kuwan ibnu Cabbaas waxa laga soo wariyay inuu yiri waxa rasuulka sallallahu alayhi wasallam u yimid mushrikiin ay ka mid ahaayeen وليد بن مغيرة أبو جهل بن هشام أسود بن مطلب سمع بن أسود ينذر بن الحارس مركاسي أي نبي كيرادين هدي أدرو شيكيسو نوغو كلا تيح ضيحا لبا قيبود قيب بورت أبي قبيس كوركيدا قيبنا قعيقان دوشيدا مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم هدان يالو مرومين إنسان حقا وحي لادين ها waxaanay ahayd habeen caddo 14 markaasuu Ilaahay weydiistay inuu siiyo waxay weydiiyeen markaasuu dayaxii noqday qayb tagta Abi Qubays dusheeda iyo qayb tagta qacyaqaan korkeeda siday ka codsadeen rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam tiyo uu u dhawaaqayo Aba Salaama bin Abdi eegayay oo ka marag ahaa waxa Anas bin Malik laga soo wariyay inuu yiri heer Maka ayaa weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam aayad markaasuu ku kala dilaacay dayaxu Maka laba jeer waxa ibnu Cabbaas laga soo wariyay inuu yiri heer Maka ayaa rasuulka u yimid markaasi ayay yiraahdeen ma jirta aayad aanu ku garano in aad rasuulkii Ilaahay tahay markaasuu Jibriil soo degay oo uu yiri ku reer Maka inay u diyaar garoobaan caawadan waxay arki doonaan aayad haday wax ku qaadanayaan markaasuu u sheegay rasuulku wixii uu Jibriil ku yiri waxay soo baxeen habeenkii oo ahaa 14 dayaxiina wuxuu u kala dilaacay laba qaybood qayb tagta Safa dusheeda iyo qayb tagta Marwa dusheeda markaasi ayay rumaysan waayeen indhahoodii oo ay masaxaan dabadeedna way ku celiyaan mar kale waanay arkeen haddana indhahoodii ayay masaxeen dabadeedna arkeen markaasi ayay yidhaahdeen Muxammadow kalima aha sixir waxaan ahayn markaasuu Ilaahay koreeyay soo dejiyay aayadan saacadii baa dhawaatay qiyaamihii dayaxiina wuu dilaacay hadday arkaan aayad way ka jeedsadaan oo ay yidhaahdaan waa sixir daran haddaba haddaynu dib u eegno dilaacidii dayaxa waxay aayadii ku soo degtay kadib beensigoodii inuu muujisay
in saacaddii qiyaamihii soo dhowaatay dayaxiina uu dilaacay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu ogeysiiyey soo dhowaanshihii qiyaamaha, ka tegidda adduunyada iyo dhammaadkeedii. qur-aankana wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay oo ku jira aayado kale oo la mid ah oo ka warramaya inay u soo dhowaatay dadka xisaabtoodii iyagoo ku jira moogani oo isdiidsiinaya. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxaa laga soo wariyey xadiiso in arrinku sidaa yahay oo uu inagu ogeysiinayo si loogu diyaargaroobo looguna shaqaysto guriga adduunyada looga guurayo. alxaafid abubakar albasaar wuxuu ka soo wariyey anas inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u khudbadeeyey asxaabtiisii maalin qorraxdiina ay ku dhowaatay inay dhacdo oonay ka hadhin dhiciddii wax yar mooyaane. wuxuuna yidhi, allaha ay naftaydu gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartee kamay hadhin adduunyada waxaan ahayn inta ka harsan maalinkan mooyaane, kamay muuqanna qorraxda wax sii yar mooyaane. imaam axmed wuxuu ka soo wariyey sahal bin sacad inuu yidhi, waxaan maqlay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam oo leh, waxaa la isoo diray aniga iyo saacadda oo sidaasi oo kale ah, waxaanu ku tilmaamay farihiisa tasuulka xigta iyo fardhixadii. imaam axmed wuxuu ka soo wariyey khaalid bin cumayr inuu yidhi, waxaa noo khudbadeeyey rasuulkii sala allahu calayhi wasalam, markaasuu u mahadnaqay alleh oo ugu ammaanay. dabadeedna wuxuu yidhi, intaa kadib adduunyadii waxay ogeysiisay inay dhammaadkeedii uu dhow yahay, wayna jeedsatay kamana hadhin waxaan ahayn hamba mooyaane, sida hamba ku hadhay weel uu kii lahaa ka cabbayo. idinkuna waxaydin uga guuraysaan guriga aakhiro ee lagu waarayo oon dhammaad lahayn ee ka guura idinkoo wata camalkiinna khayrka leh. waxaanu noo sheegay in dhagaxa lagu tuuray salka jahannamo uu sii dhex socday 70 sanno oonu salkii gaadhin, oo ilaahay baan ku dhaartay in la buuxin. miyaad la yaabteen? ilaahay baan ku dhaartay waxaana loo sheegay in jannada labadeeda albaab inta u dhaxaysa loo kala socdo 40 sanno, waxaana ku iman doonta maalin ay cidhiidhi la buuxdo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu in badan qur-aanka inoogu sheegay arrinka saacadda iyo waxa la inaga doonayo intaynu adduunyada joogno iyo siduu u tirsan yahayba cimrigeedu. waxaanu alle koreeyey qowlkiisa ku yidhi, ma aha nolosha adduunyadu waxaan ahayn ciyaar iyo madadaalo, guriga aakhiraana ugu khayroon kuwa dhowrsanaya. miyaydaan wax garanayn? intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. inta aynu ku kulmi doono muuqaalka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah. wassalaamu calaykum.